asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada Somali Motivation Podcast. waxaydina socodsiiya anigoo Astaahil Cabdiraxmaan Caydiid. barnaamijka maanta ayaa ah qaybtii ugu dambeysay ee domestic abuse-ka aan kusoo qaadanayno. domestic abuse-ka waxaan kaga hadalnay 2 qaybood oo hore. qaybtan maanta ayaa waxa ay ku saabsan tahay gaslighting waxa la yiraahdo. haddaba kelmadan maanta ayaa ah kelmad aan runtii u waayay waxa kelmad la micnaa af Soomaaliya. haddii aad garanayso kelmadaas kelmad u dhiganto micnaheeda xambaarsan isla markaana aad ambaad uba eray bixin karto adiga laftigaagu, waxaad igu reebtaa comment-ka hoose amba social media iga ula wadaag. waxaan sameyn doonaa kelmadda inaan sharaxo isla markaana qofka ay ku dhacdo amba gaslighting waxa uu qayb weyn ka yahay emotional abuse-ka amba bahdilka iyo dhibaataynta maskaxda iyo shakhsiyadda qofka loo geysto. waxaan sheegayaa calaamadaha qofka ka muuqda amba haddii aad iskaga shakisan tahay adiga inuu qofka la nooshay kugu sameynaya amba xaaladan ku sugan tahay amba qof kale aad isleedahay uu ku sugan yahay. tusaalayaal iyo calaamado wada socda ayaan sheegi doonaa isla markaana kelmadda laftigeeda ayaan sharaxi doonaa. kelmadan aan maanta ka hadlaya ayaa ah mid khatar ah oo aad u culus isla markaana macnaha ay u taagan tahay oo uu yahay mid cabsi leh amba marka laga eego saameynta ay qofka xaaladda ku jira ay ku yeelato. waa mid qofka maskaxdiisa iyo awoodiisa maskaxeed iyo shakhsiyadiisaba runtii wax weyn u dhinta, gaar ahaan qofka maskaxdiisa oo noqota mid dhalanteedka iyo runta uu kala garan waayo amba xaqiiqda uu arkayo iyo xusuustiisa su-aal gelisa oo qofku ku kalsoonaan waayo. waxaa laga yaabaa marka aad dhegeysato tusaalayaashaynu soo wadno amba waxyaabaha aan sharaxaada xataa ka bixin doono inaad tiraahdo sideebay qofka waxaas ugu dhici karaan, sidee qofka iyadoon la dilahayn, dhibaato loo cadaysanahayn, gacan loola tagahayn, la khasbahayn, sidee ayuu qofku waxaasoo dhan u mudan karaa. aniga igumay dhacdeen. qofka noocaas waa qof liita ama qof aqoon la-aan haysa ama qof dhaqaale yar haysa ama qof dhibaato kala haysa. had macnaha isku aragto amba aad u aragto qofkaas inuu yahay qof aan mataqaana karti badan lahayn oo aad tiraahdo anigana arrintaas kale iguma dhici karto. laakiin waxaan kuu sheegayaa emotional abuse-ku qof walba ku dhici karaa, adiga ayuu kugu dhici karaa, aniga ayuu ku dhici karaa, cid walba ayuu ku dhici karaa. sidaa darteed qofku waa inuu xaaladda uu ku jiro dareemo, cidda kale ee ku jirtana uu noqdo mid u naxariista oo dulqaad fara badan u muujiya. kelmadan micnaheeda haddii lasoo koobo ama sidhaahdo si kooban u sheeg ayaa waxay noqon kartaa in kelmadan micnaheeda ayaa waxay noqon kartaa in qofka qof kale amba koox kale ay ka dhigaan mid su-aal geliya miyir qabkiisa, sida uu arko xaqiiqda nololeed iyo environmentka amba deegaanka ku xeeranba. xaqiiqda uu arkayo taaban karo ayaa qofkan su-aal la gelinaya iyo miyir qabkiisa. taas laftigeeda waa miyir qabka qofka su-aal gelin karta. tusaale ahaan sidii wax u dhaceen iyo wixii dhacay uu ka xasuusto iyo wixii loo geysta ama dhibaato qofka loo geysta amba wuxuu usoo taagnaa amba wuxuu markhaati ka ahaa amba arrin la sharaxay sidii uu u fahmay amba fahamkiisa guud wuxuu yahay ama fikirkiisa wuxuu yahay. intaba waxaa la gelinayaa su-aal baa la gelinayaa. asagiyo qofku huba ayaa la odhanayaa maya saas maaha. laga yaabaa in lagu yidhaahdo may adaa u arkay, adaa fahmay, adiga isyidhi, aday kuula muuqatay, saas may ahayn. haddii marya 2 3 4 lagugu sameeyo amba marya 4 iyo 5 dad kala badan kugu sameeyaan amba dadyo kala duwan sano kale kula dhaqmaan, micnaheedu maaha in abuse lagu sameeyo maskaxdaadana ay dhibaatayn tan sharaxin oo kale ay soo gaadho oo miyir qabkaagu su-aal geliyo sababtoo tala waxaan may dhacin mise adiga waalan. tani waa qaabkan oo kale oo lagula dhaqmo, laakiin habeen iyo maalin, subax iyo dharaar, mar kasta, habeen kasta, bil kasta, wiil kasta, sanad kasta lagugula dhaqmayo oo lagugu wado oo qofkii kula noola oo kugu wado. taas ayaan ka hadlaynaa. taas ayaa qofka dhibaato u geysanaysa. waxyaabaha kale aad arkayso waxaa ka mid ah ama qofkan ku arkaysa amba haddii adigu dhibaatadan ku jirto aad isku arkayso waxaa ka mid ah in qofkii aad ahaan jirtay aanad ahayn guud ahaanba, in awoodaadi shakhsiyaaneed ama awoodaadi shakhsi ahaaneed iyo kalsoonidaadi baa isbedeleen, in wax kastoo aad qabato
ay wax ka khaldan yihiin amba aad waxba ka khaldan ma dhamaystirna. inaad tahay qof mar walba aan daalan maskax ahaan, qof shakisan, mar walba shaki warwar ku sugan, waxaad noqonaysaa qof haddii uu go-aan yaro basiid ah u baahan yahay inuu gaadho, u baahan inuu dad badan la tashado, wax soo weydiiyo, lagu yidhaahdo haa way saxsantahay, aniguba go-aankaasaan qaadan lahaa, go-aankaa ku saxsan yahay, oo aad u baahan tahay markhaati fur inaad saxsan tahay oo waxaan aad ku dhaqaaqaysaa ay sax yihiin, maadaama fikirkaaga su-aal mar walba kaaga jiro oo aanad isku kalsoonayn, amba waxaad arkaysay, waxaad maqlaysay, waxaad go-aansan kartaa aanad ku kalsoonayn. waxaanad u baahan tahay markhaati furkaasoo muhiim ah saad nolol gaadho, asaad go-aan u gaadho, go-aan nololeed noocu doonaba ha ahaadee. waxyaabaha kale qofku isku arko amaad ku arkayso waxaa kamida inuu qofku isku arko inuu khaldan yahay mar walba. haddii laga khaldan yahay, hadduu khaldanayn meelo badan ma sameynso, mar walba wuxuu isku arkaya inuu isagu khaldan yahay. mar walba isaga ayaa raaligelinta bixinaya, oo qofku xiriir kale leeyahay isaga ayaa raaligelinaya, isla markaana cudurdaar uun u raadinayo qofku haddii uu dhibaateeyo, dhibaato u geysto. si kale hadaad u eegto waxaad dareemaysaa inay wax weyn khaldan yihiin. haddii noloshaada qofka nolosha la wadaagaysa uu yahay qof aad mar walba raaligelinayso, isla markaana isaga aad u cudur daarayso oon qofka adiga marnaba ku raaligelinahayn. haddii kale oo aanad qofkii cudurdaar u raadin amba adu aanad isku arkan qofka khaldan, su-aal bay maskaxdaada ku gelinaysaa. saa darteed su-aalaha markaad ka jawaab weyda waxaad kusoo gabagabeynaysaa aniga ayaa waalan. haddaba maskaxda qofka dhibanaha sidee ayay heerkan usoo gaadhaa? sabab badan buu soo gaadhaa, laakiin haddii aan wax yar ka tilmaano, tusaale ahaan labada qof markay xiriirkoodu bilowga yahay amba macmacaanku uu socday ee la iska dhaadhicinaya qofba qofka kale, waa qurux badan tahay. intaa markay dhaafto, laakiin qofka abuserka waxa laga yaabaa inuu qofka dhibanaha u sheego been cad oo geed kusoo gaban oo qaawan oo indhacad uu lasoo istaagayo, uu sheegayo, uga shakeynayo, isagoo saa usoo eegayo, ku hirgisayo. qofku in been loo sheego cadow qaawan oo lagu hirgisay maskaxdiisa ku waalan mayso, laakiin sidoo kale waxaa loo raacinayaa in marmarka qaar xaqiiqada loo sheego, in daacad fara badan loo noqdo, in daacad loo ahaado, in waxyaaba badan daacad laga muujiyo, in kalgacayl lagu maydho, in dhinac walba kalgacayl lagaga miiso. haddana deetana qofkii marka maskaxdiisii tarbiyadeeyo amba meel la dhigo, deetana haddana beentii loo sheego, oo qofkani maadaama shakhsiyadiisu qof nooca u samaysan tahay abusera, uu kugu cad been badan oo fara badan oo caddayn u baahan inuu kugu miiso. dabeetana qofku meesha wararka uga horeeya amba waxa uga horeeya ku wareeraya waxa weeye inuu yidhaahdo qofkan beentiisii runtiisa lama kala garanay, malaha run buu sheegay, malaha been weyn oo taasoo tii run tahayd oo kala xisaabiyo. qofku ilaa ay gaadheer noloshaada oo dhan bayna iskaga kaa dhex qaldanto wax kastoo dhacaya. in qofku xaaladan ku sugan yahay waxyaabaad ku garan karta waxaa kamid ah, qofku markuu wax kuu sheego waxaad u baahantay inaad caddayn hayso, inaad message kuu soo dira hayso, in qofka SMS soo dirto, inaad meel ku qorto, inaad meel ku record garayso wixii, oo istiraahada hadhow tole qofku hadduu ka marmo caddayn hay. haddii aad isku aragto adigoo raadinaya inaad meel wax ku qorto ama qofkan kula noolaad, tiradas wadiga message-ka soo diray amba sawirkii sawirka halkaa marsanagi meeshaa tagna sookan sawirkan ku galno, waxyaaba noocaasa wax fara badan inay khaldan yihiin ayaad dareemaysaa. waxyaabaha kale oo qofku isku arki kara waxaa kamid ah inaad macnaha mar walba waxaad ka fikiraysaa jawaabtaad lamaanahaaga siisa. hadduu su-aalku weydiiya amba haddaa isku dhacdeen, maxaad ku tiri, sideed u tiri, waayaad u tirtalo, maxaasaa ugu tirtalo, markuusaa kugu yiri maxaasaa ugu odhan weydii. haddaad aragto qofka kala maqantin ood xisaabinayso wixii aad ku tiri amba kugu yiri, adigoo isatalo masaasay masaas malaa ma ahayn, malaa waxaas u jeedi, malaa waxaas u jeedi, waxaad arkaysaa wuxuu u jeediyey, wuxuu ka jeeday iyo waxaad u jeediyey waxaad ka jeeday toona inaanad garanayn. waayo waad maqlaysay, waad arkaysa, waaba taagneed meesha, amba qofkii odhanaya baad ahayd amba kii lagu odhanayay, laakiin maskaxdaada waxaa ka tagtay kalsoonidii iyo hadalkii iyo wixii dhacaya markaa xaqiiqada dhacaysa inay qaadato amba xaqiiqadii iyo wixaan dhicin. macnaha waad dabaqsan tahay, waayo wax kastoo dhacayo waad ka fikirtay oo aad ogeyd. su-aal baa la geliyay, saa darteed waad xisaabinaysaa mar walba, waxaad kusoo gabagabeynaysaa kadib inaad bartii confusionka ahaa unaad sii taagan tahay. waxyaabaha kale aad isku arkayso wax kamid ah inaan arrintani ku mataqaana koobnaan inuun adiga iyo qofkan lamaanahaaga waxaad is odhanaysaan, laakiin dadka kale laftigooda talo maxaad ku tidhi, talo sideed u dhaqantay, talo sideed u hadashay, talo sideed u soconaysay,
talo sidaad u labisatay markaad tagtayna tusaale ahaan xafladda amba dadkii aad la kulantay oo aad markaad meel ka timaado guriga kusoo noqoto adigu aad xisaabiso wixii dhacay sidii u dhacay wixii aad tidhi aanan sidii ahaayeen xasuusan karin oo maskaxdaada halkii su-aashii ka bilowdo kadibna qofka kale wixii kuu sheegay sida kuugu sharaxa laga yaabo inaad u qaadato amba waad u qaadanaysaaba oo waa qofka kale ee muraayada ku ah waxyaabaha kale qofkani sameeyaanba lagu arki karo wax kamid ah inuu faamilkiisa asxaabtiisa afford gareeyo laba sababood baa kow in uu ogyahay inuu emotional abuse ku nool yahay oo uu diidayo markaa su-aalaha laga weydiinayo iyo sharaf dhaca uu dareemayo haddii mataqaanaa su-aalahaas la weydiiyo sababta uu joogo weli maxaad uga tegi weyday maxaad uga aqbalaysaa qofka inuu saa kula dhaqmo iyo wixii lamid sababta labaadna waxay noqon kartaa in qofkani uunu dareensanin haba yaraatee in emotional abuse lagu hayo amba bahdil maskaxeed sidaa darteed uu mataqaanaa wax dareensan yahay laakiin farta aanu wixii saari karin uu markaas ka ilaalinaya dadkii oo wuxuu ugu jawaaba baanu garanayn go-aan qaadashada ayaa daaqada ka baxda hore ayaanu sheegnay laakiin go-aan qaadasho markaan leyna wax weyn oo muhiima maaha cashadu qofku karinaya caawa hadduu isdhaahdo bedel wuxuu odhanay talo faarax muxuu ku odhan doonaa mayne malaa kama helo malaa sanaa noqon doona malaa wacano malaa wa hadli malaha wuu farxi malaha wuu qosli malaa maskidiisa talo kaama ku darda kaamakidiisa leero 10 saacadood bayna ka fikirto gabadha wixii ay karin lahayd iyo wixii faarax odhan lahaa dabeetana maanta odhan ay maskaxda ku daasho way go-aan ka gaari kari weydo in qofku waxyaaba yar telefoonka qofka dusra iska bedelo inuu boqol weydiiyo adigu maxaad haysataa maabal baa haysataa wasan iyo lawaan dabarka mi fiican iyo oo bila dhanka sheekeeyo isku soo duubo go-aan qaadashada daaqada ka baxaysa maaha tamweyn ee waxa weeye qofka uu sameynaya ee waa tamaalin laha ah ee qofku maalintii 300 go-aan buu gaadhaa isagoon ka fikirin laakiin qofkan wax kasta way ku adkaanayaan ugu dambeyn qofkan wuxuu noqonayaa qof rajo la-aan sida rajo la-aantu waxay saameysaa dhammaanba qof kasta oo maskaxda dhaawac kasoo gaadhay waxaan kusoo gabagabeynayaa qof kasta oo dhibaatadan ku sugan inuu xallin karo islamarkaana uu caawimo heli karo adigu haddii aanad ku noolayn ood ogtay qof ku noolaan baad garanaysaa inaad u nasteexaysa islamarkaana aad u naxariisato aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad dhegeysatay ilaa iyo halkan podcastka insha allah waynooya isbuuca dambe fadlan podcastka halkaad ka dhegeysanayso ka follow gara islamarkaana waxaan kaa codsan lahaa inaad read garayso hal xidig ilaa 4 xidigaad ma malaynayaan apple podcastka la siiyo intii aad istiraahda way u qalantaa si oo read gare podcastka sidoo kale fadlan soo baxo youtube-kayga oo subscribe gare saaxiibadana la wadaag aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waynooya isbuuca dambe insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu